Assalaamu calaykum kusoo dhawow casharkii labaad ee QuickBook. Waxaan noo furnay company-ga lagu magacaabo Jaamac Company ee QuickBook 2018. Casharkan waxaan ku baran doonaa sida loo diiwaangeliyo badeecada ku taalo meheradaada ama meeshaada ganacsiga. Waxaa muhiim ah intaanad badeecada diiwaangelinin oo ku taalo dukaanka ku saarneed iskifaalka amba baqaarka ku taalay inaad badeecada oo dhan oo ku taalo calaa xabad ah usoo tiriso. mid kastana aad qorato qiimihiisa oo kugu fadhiyo. kabacdi ayaa waxaad ku xareyn kartaa oo gelin kartaa QuickBook. marka waxaan baranaynaa sida badeecadaas loo diiwaan geliyo. tusaale ahaan oo kale mobile ayaa iibisaa G2 mobile badan ayaa iibisaa J2 oo kale waxa meeqa xabo ku taalo. waxaa ku taalo tusaale ahaan 30 xabo ku taalo. calaa xabad meeqo kugu fadhiya asigana inaad qorato weeyaan. tusaale ahaan wuxuu kugu fadhiyaa $50 $60 inta uu hadba uu kugu fadhiyo inaad qorato. marka waxaa sameynaysaa sida badeecada u diiwaan geliso ugu horeyn markaa soo gasho QuickBook waxaa sameynaysaa inaad tagto lists kadibna aad ka sii doorato meesha ay ku qoran tahay item list. waxaa ku soo furmaysa shaashadan weynayso kabacdi waxaa sameynaysaa right click meesha ay ku qoran tahay new ka sii door. markii aad new ka sii doorato meeshan shaashadan kale ayaa ku soo bixayso waxaan aad diiwaan gelinaysa maxay yihiin oo ku weydiina marka type-ka ay yihiin. marka meeshan waxaa laga rabaa inay ka soo muuqato inventory part maadaama badeeca aad diiwaan gelinayno. meeshan kuma jirto nin ugu horeyn waxa u horeeya surface nin inventory part recharge waxyaabo kale discount payment ku jiraan maadaama meeshan laga rabo inay inventory part soo gasho. waxaa sameynaysaa qaaradan ayaa iska xiraysaa waxaa sameynaysaa escape iska dheh kadib waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay edit kadibna meesha ugu hooseyso ay preferences ay ku qoran tahay ku dhufo. waxaa imaanaysaa meeshan item and inventory ay ku qoran tahay kadib waxaad tegaysaa company and preference meeshan tig la-aanta ayaa tig saaraysaa inventory and purchase other active meesha ku qoran tahay okay dheh kabacdi waxaa kusoo laabanaysaa meesha marka badeecadaas ka diiwaan gelin lahayd oo ahayd list item list kabacdi right click new mujida inventory part ayaa soo gashay kabacdi ayada ku dhufso meeshan item name iyo numberkiisa ayaa ku qoraysaa. marka meeshan badeecada aad diiwaan gelinayso maxay tahay mobile J2 dheh magaca mid kasta aad diiwaan gelinayso meeshan ku qor mobile J2. marka meesha ku qorto kabacdi waxaa imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay iyadana cost meeqa ayuu kugu fadhiyaa mobile-kan. tusaale ahaan wuxuu kugu fadhiyaa $50. meeshan sales price ayada ay ku qoran tahay waa inta iibi lahayd badana iska dhaaf maadaama inta rabta iibi karto mar 70 iibinay mar 80 iibinay hadba aday ku taala. meesha muhiimka waxa weeyaan meeshan ay ku qoran tahay income account badeecadan J2 markii la gado account ay kugu dhacayso qarashkaas waxaas badeecada markaa gado. marka waxaa ku xirin maadaama ay tahay badeeco waxaa ku xirinaysaa sales macnaha wuxuu hoos tagaa income wax walbo la gado account-kaas ay ku dhacayaan oo saleska ah. meeshan on hand ay ku qoran tahay meeqa xabo oo J2 ah ayaa ku taala calaa xabad marka usoo tiris. tusaale ahaan waxaa ku taalo 150 xabo. marka wuxuu sameynaa total value waxa weeyaan 150 xabo oo ku taalo iyo wuxuu isku dhufanaa calaa xabad meeqa kugu fadhiya 150 iyo waxa isku dhufanay 50 waxaa ku soo bixayso inta uu kugu fadhiyo 150 kan xabo ee J2 ah. inta max waxa weeyaan inta badeecadan markii ugu badato hadii ay intaas dhaafto isoo xasuus. tusaale ahaan oo kale 100 hadii gaarto 200 ay ka badato isoo xasuus. hadii mobile-kan hadda 200 laga dhigo ma uu soo xasuusinaa hadhowto badeecadaas. halkan kale meesha ugu dambaysa markay gaarto ay aad u yaraato isoo xasuus. waxaa dhici kartaa kalmada 5 xabo gaarto oo J2 ay 5 xabo iga harto isoo xasuus ayadana. kabacdi wax kale kuma dhino waxaa sameynaysaa inaad tiraahdo interim okay. badeecada saas ay u diiwaan gelisay waa tan total meeqa xabo kaga taalo waa 150 xabo. waxna ma laga iibin ilaa hadda wax kama bixin. hadaa ku dhufato waxaad arkaysaa badeecada sideeda 50 xabo ah. waxaa jiro qaab kale oo loo diiwaan geliyo badeecada markay tusaale ahaan oo kale ka soo qaad waxaa ku yimaado markab Shiinaha amba waxaa ka soo adeegtaa Imaaraadka kale. markabkaas oo dhan markuu ku yimaado waxaa ku fuulayo qarashaad ku dalacaysa waxyaabo fara badan taxi ku saarma cashuura ku saarme taasna qaab kale loo diiwaan geliyo ayaa jiraan ayagana. casharada marka waxyaabo fara badan ka horeeyo in la barto marka qaybaha ugu dambeeya casharada ayaan ku baran doonaa. casharka kale intaan ku kulmayno. والسلام عليكم. أذن كان أصحابته أسوي شرقرية
tan iyo intaa ka kulmayna waa Xiskaal oo leh. Wassalaamu calaykum.